أجمعين marka hore marwooyin iyo mudanayaal marti sharafta ka soo qayb gashay madashan labaad ee maalkashiga ama maxay dhaqaalaha Somaliland waan idinku soo dhaweynaynaa waana soo sharafteen ilaahay sharfo golaha wasiirada inta ka fadhida agaasimayaasha hay'adaha madaxa bannaan madaxdooda maareeyaasha iyo hay'adaha dawligaaba waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madashanu waxay koobsanaysaa oo ugu horeynaysana si dhaqaale loo gaadho horumar loo gaadho waa in cuntadeennii aanu sugnaa wax soo saarkiina kor u qaadnaa halkan waxaan ku soo koobayaa uun 7 qaybood oo aynu arrintaa ku gaadhi karno kuna ajiibi karno inaan horumar ku gaadhno halkan waxaan kaloo ka salaamayaa aadna u hambalyeynaya oo aan la soo hadal qaadin xubnaha ka jooga beeralayda Somaliland oo ururadii iyo iskaashatooyinkii baan halkaa ku arko oo ah kuwa tacab badan geliyey dhulka iyagoo aan haysan caawimo dibadda ama mid gudaha soona saaray inta yar ee cuntada ee aynu isticmaalno aynu kaga baahi baxnay cuntadii dibadda inaga imanaysay waxaan kaloo uga faa'iidaysanayaa madashan inaan u hambalyeeyo bogaadiyo u mahadnaqo qurbajoogta Somaliland ee dibadda ka soo noqday oo badankoodu sameeyay beero waaweyn oo investment badan ay geliyeen sameeyay mahad bay leeyihiin sharaf bay leeyihiin waanan u mahadnaqayaa waxa ugu dambeysay shalay oo joogay beer ku taala Arabsiyo muwaadin ka soo noqday dibadda 2018 bilaabay beer iibsaday maantana halka ay marayso commercial ganacsi sameeyay faa'iido badan ka helay halkaas oo shalay aanu ku casuumay beeralayda Somaliland kuwa ganacsiga sameeyay commercialka oo aan doonayay inaan u sameeyo umbrello ama dallad guud oo ay ku wadaagaan inay cilmiga isku dhaafsadaan inay khibradda isweydaarsadaan inay wax isdhaamaan isasiiyaan inay xiriir sameeyaan oo policy of isolation kan aynu ku jirno laga baxo oo gamcaha la isqabsado haddii xukuumad leeyahay iyo haddii leeyahay shacabka maalgelinta beeraha ayaa ku horeysiinaya xukuumaddan ama xukuumaduhu waxay mudnaan siiyaan maalgelinta kaabayaasha beeraha tiknoolajiyada cilmi baadhista oo muhiim u ah in beero la beerto oo in la helaa daraasaad cilmi baadhisa ama xarun taas oo aynu ku leenahay xarunta aburiin halkana madaxweynuhu soo hadal qaaday oo aan iyadana daraato soo dhignay bandhigii ugu horeeyay ee siinarkii inaga lumay aynu soo celinay qaar cusub oo adaptable ku ah dalkeenana aynu keennay markaan example ahaan soo qaato digirta 25 nooc oo digira inaynu baadhnay diyaar u yihiin in beeraladeennii loo qaybiyo kuna baxaya dalka haddaan ka soo qaadno qamandida ama hadhuurka oo kale 26 nooc oo dibadda aanu ka keennay la baadhay macadka cilmi baadhista Somaliland ee aburiina ay baadheen oo uu ka joogo Dr. Maxamed Warsame oo hortayda fadhiya maalkashigaas wuxuu keenayaa inaan wax soo saarkii iyo cuntadiiba kor u qaadno beeralaydiina aynu barno technology isla markaana wacyigelin siino waxaan laba beeraha joogtada dawladdu ama wasaaradda beeraha ka wakiila dawladdu waxay xoog ka saaraysaa dhaqaalaadka beeralayda ee waara oo loo ilaaliyo deegaanka si loo ilaaliyo deegaan nabad ah oo aan nabaad guurin loona xaqiijiyo sugnaanta cuntada aynu beerano ee mustaqbalka fog tani waxay ku lug leedahay kor u qaadidda beerashada
cuntada ama sugidda cuntada iyo farsamooyinka isku dhafan ee maareynta cayayaanka marka waa inaynu cayayaankii ka maareynaa waa inaynu sugnaa cuntadii waa inaynu beeraleydiina farsamo barnaa iyo aqoon ta saddexaad barnaamijyada taageeraya beeraleyda wasaaraddu waxay diyaar u tahay oo shirka ka horeeyena ay ballan qaaday haddana halkan aan idinka soo dabin doonaa wixii aanu ballan qaadnay intaanu ka qabannay in dowladdu ama xukuumaddu waxay fulinaysaa barnaamijyada lagu taageerayo beeraleyda yaryar korna loogu qaadayo awooddooda aqooneed tani waxay ku jira siinta helitaanka iyo gacan qabasho xagga tababarada xagga kaalmada farsamo xukuumaddu ama wasaaraddu waxay kale oo ay iskaashatooyinka dalka ku siinaysaa inay cilmi barto isu yimaadaan waxaananu bilownay oo aanu sanadkaa wadnay oo ballanqaadkaygana ka mid ahaa inaanu iskaashatooyinka dib u soo celino oo halka beerihii yaryaraa nin kasta intuu beer yar samaysto markay ka xumaato uu iska fadhiisanayay in 15 beerood 20 beerood oo isku deegaan isku degmo ah la isu geeyo loo sameeyo xeer loo sameeyo qaanuun guddi loo sameeyo wasaaradduna kor joogtayso taana waanu samaynay gobolladii oo dhan iskaashatooyinkii iyaguna way nooga hirgaleen ambareeladan dambe ama dalladan loo samaynayo beeraleyda ganacsiga oo aanu shalay guddigeedii dhignayna waxaa hoos iman doona iskaashatooyinka yar sidaasaynu ku wadaynaa inaynu beeraheena iyo sugudii cuntada kor ugu qaadno afraad horumarinta kaabayaasha suuqgeynta waxaanu diyaarinay ama aanu diyaarinaynaa ama aanu soo saaraynaa horumarinta kaabayaasha suuqyada ama suuqgeynta ee sida tashiilidda kaydinta iyo shabakadaha gaadiidka suuqyada jumladda tani waxay gacan ka geysanaysaa dhimista khasaaraha ka dambeeya goosashada oo marka cuntadii la goynayo ama beertii soo baxayso khasaare waxaynu ugu dhacaa after harvest boqolkiiba 40 cuntadeenu way luntaa marka sidaanay u lumin waa inaanu kaabayaal u samaynaa kaabayaasha u samaynayna waxaa ka mid ah inaanu feeder roads u dhisno oo tuuladii ay beertu ka baxaysay waddo accessa loo sameeyo degmadii ku yimaado degmadii ka tago suuqgeyntii la geeyo oo tamaandhadii ka soo baxday baki ama xeego ama buuraha booliska tuulooyinka ku yaala waa inuu ku yimaadaan iyagoo saliima inay soo gaadho suuqa Hargeysa iyo ka dabadaba marka waa inuu sameeynaa access waxaanu hadda dhamaystir ku dhow wadada u dhaxaysa Boorame iyo Baki waxaan dhagax dhigay dhawaan wadada iyaduna u dhaxaysa Boorame iyo Xeego labadaas tusaale noo noqonaya waanaanu sii wadaynaa oo ballanqaadkii sanadkii hore aanu samaynay marka shanaad kaydinta iyo qaybinta cuntada waxay naga haystaa dhibaato inaga haysata cunto qaybintii iyo kaydinteediiba cuntadii markay soo go'do ama raashinkii noo soo go'o halkee baynu ku kaydinaynaa good example tamaandhadu marbay soo wada go'daan marka ay soo wada go'do suuqay wada timaadaa tii Itoobiyana way timaadaa waa la daadiyaa marna waa la waayaa oo wuxuu noqdaa kiiloogoodii $3 $4 marna waxa weeyaan $1 wax ka yar marka waa inaynu u samaynaa oo inuu raadinaa suuq geyn ama maalgelin u samaynaa sidii aanu samayn lahayn meelo lagu kaydiyo oo markay cuntadu inaga badato ama surplus noqoto lagu kaydiyo oo room temperature lagu hayo oo markay go'dana la soo saaro si uu qofkii beeraleyda ahaana u faa'iido oo aanu marna u khasaarin marna aan waxba weelin ee si joogto ah ee uu u helo taasna waxay noo samaynaysaa inaynu dhaqaalaheennii kor u kaco khasaarihii dhaqaalaha ku dhacayay ama beeraleyda ku dhacayana hoos u dhaco cilmi baadhis iyo hal abuur waa inaynu samaynaa cilmi baadhisyo fara badan iyo hal abuur waxay noo jirta hay'ad cusub oo hore u jirtay laakiin hadda aan dardargelinay wax badan qabatay iyada inaynu sii horumarino la xidhiidhno la kaashano cilmiga ka doonano
صدق الجامعة هو وين يقرأ وحنا كسبيني بيروح بباريسا حتى يتاي عبود حتى يتاي برعو حتى يتاي أرجيسا وبلقات كسرت جوهره وسارد بيرو سمايسي أو هيركلي لما هو يقهر واحد تجيبوره به أنا سيدت بلو كهريني بيرينو سمايا علم باريسا أو أي مدان أقوياء ويكبران وسير كيني لومي مدلة كيني لومينا تبلغ سوعيه من environment كينا كوابونا لغو بيرو waxaan tagay 3 week ka hor waxaan arkay beer aad u weyn oo 7 hektar ah oo ay bilaabeen oo cuntadii oo dhan ay ku beereen halkaana daraasaadkii iyo cilmi baaristii laga bilaabay marka waan cilmi baaris sameynaa waan aqoon sameynaa waan dib u soo celinaa iskuulaadkii lagu baran jiray beeraha ama veterinariga oo ah professional schools ama vocational training schools oo markuu ilmuhu ka soo baxo intermediate-ka 3 sanadood loo diro skill level noqdo beer kasta uu joogo nin aqoon u leh cudurkii beeraha sidii loo beerayay sidii loo goynayay sidii suuqa loo geynayay kaana waan ku tala jirnaa waxaanu dib u soo celinay iskuulkii beeraha ee burco ku yaalay uu inoo shaqaynayaa waanaanu bilownay oo ballanqaadkii aanu qaadnay waxaanu kaloo dhisaynaa oo ay noo dhammaatay feasibility study iskuulku yaala arabsiyo oo isaguna noqon doona iskuul beeraha oo 3 sanadood wax lagu barto oo aynu soo saarno blue color skill labor aynu soo saarno beer kastana aynu dhigno inan aqoontii u leh ama inan aqoontii u leh oo la joogta oo beeraheedii kor wax soo saarkeedii kor u qaada waxaanu kaloo maxay dhisaynaa dib u soo celinay iskuulkii beeraha ee dayaxo oo aan dhawaan tegi doono iyo kii cadaadley haddaynu helno 5 iskuul ee maxay vocational training schools oo dhalinyaro fara badan ka soo bixi doonto waxaynu gaari doonaa horumar oo dadkii skill level-ka ahaa ee naga dhammaaday ay dib u soo noqon doonaan beeraheennina beero cilmiyeysan oo cilmi ku dhisan ay noqon doonaan oo beer hektar wax soo saarka imika noo soo baxa waa hal kintaal ama 2 kintaal beer hektar waxaan doonayaa inaan beer hektar gaarsiino 20 kintaal oo ah cilmiga la gelin doono si wax soo saarkeennii aynu uga maarano cuntadii dibadda aynu ka keenaynay nidaamyada siyaasadda oo aan ku soo xidhayo iyo regulationskeeniiba waxaanu ballan qaadnay doorkii hore sanadkaa inagu halka joogna inaanu siyaasadda aanu maxayday lagu hagayo beeraha ay xukuumaddu intay jirto soo saarto waxaan hadda soo saarnay siyaasaddii maxayday beeraha golaha wasiiradu way baaskareeyeen sharci bay inoo noqonaysaa beeralayda iyo meelaha aqoontu taalana waanu qaybin doonaa markay soo baxdo digreetadaasu waxaa kaloo aanu soo saaraynaa wax la yidhahdo seed law oo seedkan inoo imanaya annagoo la kaashanayna hay-adda cilmi baarista beeraha ee Somaliland in seedka inoo imanaya uu noqdo seed certified oo la soo hubiyey oo aan cudur wadan oo u adkaysanaya abaaraha oo u adkaysanaya cudurrada oo u adkaysanaya biyo yaraanta harvestkiisu loo yahay waqti kooban halku 6 bilood ka baxayay for example qabadadii berigii wataanu keenay 2 bilood iyo 18 cisho ayay ku baxaysay gobolladii oo dhan way ka baxday taana waan dhiirigelinaynaa waxa kaloo aan soo wadnaa agro chemical loogi oo isaguna ah pesticide oo dhibaato badan inuu haya marka saddexdan loo inoo soo baxaan oo filayno insha Allah bismillaahi kariim 2 bilood soo socdeen labadaana ku soo saarayno waa dhoodayeen final draft kii uu marayaa waana maxayday dhamaystirnay looyaradina waa maxayday wixii ay ku dareen way ku dareen wasaaraddu marka waxay u diyaar u tahay haddii saddexdan loo inoo soo baxaan in beeraheennii ay ka maarmayaan ama laga dabar goynayo cudurradii in laga dabar goynayo in seed aan certified haynu soo galo in laga dabar goynayo in per hectare uu soo baxo maxayda intaasoo kintaal ugu yaraan 15-20 kintaal inaynu soo saarno waxaan maxayday ku darayaa oo kale maalgashiga dalka wuxuu u furan yahay cid kasta ajnabi buu u furayay Somaliland buu u furan yahay marka waxaan ku boorinaynaa
inuu shirkan ka soo baxo arrin lagu dhiirigelinayo in dadkeenna maxay qurbo joogga ah dadkeenna qolqoljoogga ah iyo ajnabiguba ay u siman yihiin inay maalgashadaan dalkan waa loo soo jeedaa maalgashigiisu waa soo socdaa beerihiina insha allah waxaan doonaynaa inaynu ka haqabeelno oo aynu baranno inaynu cunno oo guryaheenna lagu kariyo cuntada maxayda ka soo baxda dalka oo aynu ka maaranno baastadii iyo bariiskii dibadda laynooga keenayay waxaan kusoo gabagabaynayaa bisha 16-keedu waa World Food Day maalintii cuntada adduunka waxaan ku qabanayaa magaalada la yiraahdo Berbera sanadba meel baan ku qabanaa waana berri ma heesaa dambe cuntada la serve gareynaya ama la dhigaya waa cunto loo kala gabigeen taasna waxaan ku doonaya si aan u dhiirigelino cuntada inoo soo baxda inaynu cunno oo guryaheena ku cunno oo aynu ka maarano cunto dibadda laynooga soo waariday